halkan saa u jeedaan waa kaam weyn waxa degan ugu yaraan 300 oo qof oo qaxoonti ah waxay ahaan jirtay markii hore jaamacad dadka jaamacadaha u yimaada student time bay ahayd imikana waxa isku bedeshay meel Soomaalida qaxoontiga ay soo degaan markii sharciga helaan qolkii waxa lagu degan hal qof laakiin Soomaalidu iska taqaanayo 5 qof 6 qof ku degi kara hal qol yar oo maqan waliba dhibaatooyin imika waan ku qabnaa hadda ma shaqeynayo halkan leeyahay awsuuga ama wishka dadku ay raacaan guriga ay kor u fuulaan oo kale korontadu marar bay ka go'daa oo habeen ay naga maqan tahay imika waxaan ku soconaa sidii aan hore aan ugu soo sheegay dadkan Soomaalida ama dadka qaxoontiga markii wadankan ay soo galayaan waxa la geeyaa xiriir qaxoontiga la geeyaa amba kaamba la geeyaa oo halkaas marka qofku ku sugiyo sharcigiisa halkan saa u jeedaan waa kaam weyn oo ku yaala maxayada magaalada Mönchengladbach dadka qaxoontiga ayaana la keenaa waxayna ku sugaan meeshii rasmigeed ma aha oo qofku deegaankiisa dhabta ahaa ma aha waxa weeye intuu sharciga qofku uu qaadanayo ayuu ku jirayaa mindestens 1 jaar 2 jaar marka waxay qaadan kartaa inaan bil 2 bilood sanad 2 sano ay qaadan kartaa waxayna ku xiran tahay qofka marka faylkaaga haya sidii uu kugu soo dadaalo amba sidoo faylkaaga u eego waa la kala horeeya sidaan ognahay wadankan Jarmalka qaxoonti badan ayaa sanadii dambe soo galayay khaasatan 2015 waxa soo galay ugu yaraan 3 milyan oo qaxoontiya soo galay oo Suuriyan, Soomaali, Eritrean, Ethiopian, Sudanese marka meesha imika u jeedaan waa halka imika way kala xirxiran tahay waa qaybta ay degan yihiin ilmaha qaybta ku xigtana waa qaybta dadka waaweyn ay degan yihiin halkan ciyaalka ku ciyaara familiyada degan halkan wixii single-ka ayaa degan marka waxay sugayaan inta waraaqada maxkamadda uga imanayso interview-ga ku marayaan kadibna jawaabtii sugi doonaan jawaabta markay helaanna qofkaasi kaamkaas amba uu deganaanaya oo haduu doonayo in waxbarasho uu helo uu sii deganaan karaa hadii kalena hadii uu doonayo inuu ka guurana option kale oo furano inuu maxay guri u raadsado guri caadiya sidan xaafadahan oo kale imika u jeedaan oo kale guri caadi oo la kireynayo kuwa halka ka soo jeedo oo kale guri caadi oo la kireynayo sida tusaalahan oo kale soo qaadana guriyahaas hadii uu doonayo inuu sharcigiisa markuu u soo dhaco inuu iskaga jiro oo shaqo u galana uga sii fiican tahay inuu guri u qaato sababtoo ah guri markuu qaato qofkaasi lacagta guriga iska bixinayo isaga isku qaba laakiin imika markuu meesha qaxoontiga ku jiro amba xiriyahan qaxoontiga markuu jiro dawladda bixisa hadii uu guri caadiga u qaato si aan u jeedno guriyaha caadiga ugu yaraan wax kasta wuxuu bixinayaa 600 400 guriga ku xiranta markaas qiimihiisa iyo xilligii la dhisay iyo maxayday ay ku xirantahay meesha ku yaala ku xiran tahay waxa degan ugu yaraan 300 oo qof oo qaxoonti ah oo dadka markay wadankan soo galaan qaxoontiga ah ayaan ka imanay imika waxaan ku aadanahay amba aan ku soconaa socodkan markaan socono aan ku tageynaa dadka markay Soomaalida ka baxaan meesha kaamamka amba qaxoontiga ay ka baxaan xorooyinka qaxoontiga markay ka soo baxaan meesha ay tagaan ee labaad ee noloshooda isleeyihiin guriyahaas aan jaban ay tagaan ayaan imika ku soconaa wadada naga yar xidhan sida imika waxaan joognaa xaafad kamid ah xaafadaha Mönchengladbach ay degan yihiin Soomaalida halka imika hor taaganay waxay ahaan jirtay markii hore jaamacad dadka jaamacadaha u yimaada student time bay ahayd imikana waxa isku bedeshay meel Soomaalida qaxoontiga ay soo degaan markii sharciga helaan ay ka qaataan guriyaha oo guriyaha kale aad uga jaban 200 euro weeyaan bishii Soomaali fara badan baa degan waxa degan Eritrean baa degan Bangladesh baa degan Sri Lankis baa degan qofkii shaqeysta oo dhanba yimaada halkan iyo dad aan shaqeysanin ayaa yimaada waxa oo jaban tahay noloshii kaam ku meedanta laakiin waa kaam oo kale laakiin guri caadi ah oo xisaabsan tahay dadka degan marka waxa weeyaan qofkii doonaya inuu maxayday lacag u yar dhigto gurigan kale iska qaata noloshaas lacag badan kama baxdo waa guri raqiis ah
halkan iminkaan imanay waa afaafkii guriga laga soo geliyay meeshan waa afaafkii hore ee guriga ka soo geliyay halkan iminka waxa ku qoran kale tusaale ahaan bitte abstand halten please keep this place macnaha inaad qofku labada qof amba meesha soo geliya maadaama lagu jiro corona time amba covid-19 soo qofo yaqaano mindestens oo isku jiraan 1.5 meter hal mitir iyo badh halkan waxa weeyaan qofku markuu gurigan uu soo geliyo halkan baa taabanaysa qofka guriga ku jira ayaa ka furaya halkuu ka soo dhaadhici lahaa liiskan aad u jeedid waa liiska dadka degan tusaalahaan oo kale imika hadaan ka garan dad Soomaaliyeed ay degan yihiin waa dad Soomaaliyeed oo meeshan degan oo noloshii kaamka ay dhaanta halkani haddii imika isku daynayna hore u galno posta iyo gurigiisu sidoo yahay qaabka uu dhisan yahay oo aan tusi karnaa halkan waa shuruucdu ku sharaxayaan halkaas waa xafiisyo kale guriga iska leeyihiin halkaasna waxa weeyaan suuligii ragga iyo kii dumarka halkan waa xafiiskii qofka markuu guriga uu qaadanayo oo maxayday fataraaka ka qaadanayo guriga halkan aad u jeedaan waa halkii boosaha ala qof waxa ku yaala 800 boostood ba ku yaala guriga waa 800 oo qol ayaa ku yaala sida kaam wuxuu dhisan sidii hotel camal buu dhisan yahay hadda u jeedaan gudihiisa halkaas hore horan gali karna macal gudihiisa halkaas waa meeshii parkingka gawaarida dadka dhigtaan imika waxaan joognaa dabaqii ugu hooseeyaan joognaa halkan waa jikadii oo wax weeyaan cuntadii waxa lagu karsanayo oo qolkii ka cuntada lagu karinayay imika nigaas wuxuu karinayaa alaabtooda karsanaya fuufuul oran jiray halkan waa wiishkii laga raaciyay qofka duu jimicsiga doonayna jaranjaradaas uu raaci kara qolkii waxa lagu degan hal qof laakiin Soomaalidu iska taqaanayo 5 qof 6 qof ku degi kara hal qol yar oo dhaqan dadka degan Soomaalida degan waa dadka tigtaaniga amba tigtaaniga macnihiisa dadku u fasirno yahay markabkii qalimay amba dhacay filimka laga sameeyay tigtaanig loo oran jiray ayaa loogu magac daray maadaama dadkan doon aan soo raacnay bad doon ku soo galnay magac tigtaanig loogu bixiyay sultan kaalay waxa kamid ah dhalinyarta ma kamid ah meeshan degan tafaasiil laga siin doona insha Allah si uu degan dad badan oo Soomaaliyeed degan iyo ajnabi kale leeyahay waxa loo degan yahay si gaar ah qof walba gaar u degan yahay laakiin waa meel public ah oo dad fara badan ay degan yihiin waliba dhibaatooyin imika waan ku qabnaa hadda ma shaqeynayo halkan leeyahay awsuuq ama wishka dadku ay raacaan guriga ay kor ugu fuulaan oo kale korontadu marar bay ka go'daa oo habeenaya inaga maqan tahay waxyaabo badan baa la isla sheer gareeyaa sida kijooyinka oo kale waa la isla sheer gareeyaa marka ma aha guri maaragtay tasiilaadka ama adeegii loo baahnaa oo dhan laga wada heli karo ma ku meel gaar magaalada waxyaabaha kale ee magaalada ka jira waxa weeye waa magaalo shaqo weeye oo dhalinyaradu ay si xoog ah oo aad u timaado inkastoo shaqada lafteeda haddana ay adeegyada magaalada oo ay hooseeyaan sida gaadiidkeeda oo kale hadda magaalada wax isbaliya kama shaqeeyo awdba wax la kama shaqeeyo waxa ka shaqeeya bas oo kaliya marka taasna dhibaatooyin baa lagu qabaa xaafadaha mararka qaybtood basasku way ka go'aan oo waxa laga yaabaa inaad inta shaqo tagtid aad habeenkii soo lugaysid oo aan xilligii aad u baahnayd baska oo kale aanad helin marka dhibaatooyinkaas ayaa magaalada ka jira guryaha laftooda ma badna oo guryaha waa ciriiro si xoog ah looma helo guryaha helitaanka guryaha aad buu u yar yahay dhibaatooyinkaas ayaguna ka jira aad u maasanta waxa weeyaan dadka asxaabta degan gurigan degan weeyaan wuxuu naga siinayay tusaale iyo sida uu yahay amba xaaladda dhabta ka jirta gurigan aad u maasanta